السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لا يكون سر channel كسربيان قلبت معاه وقت كستي كوتا محن كل قيب سنايا محاس أسوق لنايا إن شاء الله تعالى ما أنتم محن قيب سنايا نفقير أو تمها أما هير ماسك تمها أو آد أفضل آد ويروح بدنا عنك كومنين أيان متقنايا إذا قيب سنايا إن شاء الله حتى دي لهي هذا وحن كبلا بدونا وكنت أيان كبلا إن شاء الله وكنت حنسمينايا waan kala bixinayaa inta cad iyo inta yar mataqaana yelowga ama shaharka yar guduudan ayaan mataqaana u kala bixinayaa timaha ukunta ayadoo dhan waa marsan kartaa waana kala bixin kartaa reesanka loo kala bixinayaa waxay timaaga ay ku xidhan tahay hadba timaha qofka u marsanaya qaafka ukunta u qaato ukunta burtiin ay leedahay aadna u fiican tahay marka maaskaha marka ka samaysanaysid ama nafaqada heerka aad ka samaysanaysid waxaa ku xidhan tahay timahaaga taybiska ay yihiin inaad ogtahay ama aad taqaani ama timaha marinaysa hadaa ilmihiir u marinaysa ama adigu aad marsanaysid saas daraadeed ani timahayga ma wada qaataan inaan ukunta dhan aan wada mariyo markaa ukunta intaan yar bay timahayga mataqaanaa ay la shaqeeyaan marka saas daraadeed aan mataqaanaa soo kala bixiyey oo aan uga soo kala qaaday laba qaybood uga kala dhigay hadda ukuntii laba xabo kaliya isticmaalay waxaan kusoo darsanayaa laba qaado oo saliid aan isticmaalaa waa castor oil shacdaanka waaye castor oil way noocyo badan tahay marka tana isticmaalayo waa all hair types timaha dhan ay tahay waana castor oil insha Allah waxa aan kaloo kusoo darsanayaa coconut ama saliida qumbaha ama saliid naarijiin ayaan kusoo darsanayaa hal qaado oo weyn saliidan aan isticmaalayana waxa waaye saa inii sheegay waa saliida qumbaha way fadhisaa sababta ay u fadhiisatana meesha aan jooga ayaa wixii taa qabow haddii aan meesha aad joogto ay tahay kuleyl saliida qumbaha way dhalaashsan tahay marka waxa keenaya inay saan xayrta camal ama maarta ay saan u fadhiisato waxay u noqotay waa qaboobaha ayaa fadhiisiyay si kale ma ahan insha Allah waxaan kusoo darsanayaa qaado malaba ama wax yar oo malaba haddii ilaahay yiraahdo malaba laale malabka aad haysatid ayaad isticmaali kartaa reesanka aan malabka ugu daraayana maxay tahay malabku aad u fiican yahay timaha wuxuu siinayaa madow yar shiny ama dhalaal ayuu timaha gelinayaa timihii wuu israacinayaa malabka marka malabkana isagana mataqaana qaabkaas ugu daraaya waxaan kaloo kusoo darsaday waxaa waaye laba qaado Greek yogurtka bleenka ama ciirta caanaha aan wax mataqaana fruit iyo sonkor iyo cusbo midna aan lahayn ayaan kusoo daray insha Allah waa nafaqo yar aad iyo aad u fudud aadna munaafacaad badan timaha ugu la runtii maasha Allahna waa kaasa hadda waxaan sameynaa si fiican u qaso maadaama saliid saa inii sheegay ay fadhiday in waxaan u baahanahay biyo yar oo kulul inaan mataqaanaa baaquliga ama dibadda aan gadaal saa ugu dhexgeliyo sidii wax yar ay igu dhalaasho saliida insha Allah nafaqadan aad u fiican tahay ama hair maskahani waa nafaqo aad cajiib runtii ina naasibtay labadii week ama weekii hal mar aan marsanaysa ama ilmaha hadda u marinayso u marin kartaa qof yar iyo qof weyn midna ma diidayso marka waa kaasa biyo waa iska bixiyay hayr waa ii dhalaashay qaabka u rabay waa ka si fiican ayaa la rabaa inaan mataqaanaa isu dhexgelisid maadaama ukun ay ku jirtay oo qastid marka cabaar ayaa mataqaanaa aan qasayay oo aan qaadada xoog u qasayay kadib ready ayay ii tahay ama diyaar ayay ii tahay sidaas ayaan uga baxaynaa hair mask ama nafaqada timaha waxaan kaloo idin qaybsanaa haddii ilaahay yiraahdo maadaama timii aan wax u diyaarsaday wax yar aan face-kana marsado timii markaan wax marsaday waxaan jeclahay wajigana inaan mataqaanaa aan wax marsado face maskaha yariiska isagana ayaan la qaybsanaa insha Allah sababta aan u diyaarsanayana waxay tahay ukuntii baa meesha ii taal cadayd oo aan mataqaanaa qaybta kale kasoo bixiyay marka waa kaasa hadda waxaa meesha aan ku shubtay waxaa waaye waa aloe vera gel waaye dacar waaye gelkeeda waxaan kusoo darsanayaa hal qaado oo rose water biyaha ubaxa insha Allah biyaha ubaxa haddii aadan haysanina waad ka maarmi kartaa laakiin aniga ii shaqaysaa runtii maasha Allah tabaarakallah waxaan ku shubtay aloe veradiisa arkayseen iyo biyihii ubaxa waxaan kaloo kusoo darsanayaa lindanaan waaye lindanaan maxaa la dhahay iyadoo shiidan ayaalka ku jirtaa oo juice camal ah ama biyo camal ah hadda iyadoo caadi ah haysatid waa ku darsan kartaa haddii ilaahay yiraahdo kadib waxaan kusoo darsan doonaa haddii ilaahay yiraahdo intaan wax yar dhex gelinaya waxaan kusoo darsanayaa ukunta shaarkeeda caddaa ee aan timaha aan ka reebtay ayaan kusoo darsanayaa face maskahan isagana aad iyo aad u fudud yahay aadna wuu u fiican yahay waa kaasa ukuntii ayaan in yar kusoo darsaday intii cadayd ayaan kusoo darsaday waxaan rabaa isagana
inaa mataqaana aan si fiican isku dhexgeliyo maasha allah tabaarakallah. waa kaasaa timahaagiina 4 geesaa ka dhigaysaa nafaqadii aan kuusoo hore aa kusoo aragtay aa marsanaysaa kadibna wejigaaga ayaad mataqaanaa nafaqada aan yar aa marinaysaa oo face maska aan dhehe sorry afwan waa kaasaa hay akhyaare maasha allah tabaarakallah timihii wax marso wejigiina wax marso wejiga mataqaanaa maaskaha yar ee la marsanayo wuxuu kaa saacideynaya refreshin ayuu ku siinayaa maasha allah يعني وحواي وآذي آذ في عين وكنت أنت عن نساء أكتهم بأيضا وحواي أنتي إتش وحاول كل جذا مرسن كرتها أديكوا وحبكوا الدرن سيدا وكلا أولو ذيرا ذا أكتين وحيس ميسا من مذوق يستخدم أي وحس كوجر أدن أي كاس وبحنيسا تركاga ما شاء الله marka waa kaasa wajiga ayaa marsanaya hadda gacanta ayaan ku tusaya laakiin waxa aan ugu talagalay waa wajiga sidaas birbirqa ah oo quruxda badan ay ka dhigaysaa ma sha Allah tabaarakallah waa wajiga wax yar oo fiican refresh matrikaas tirso wajiga ma sha Allah aad iyo aad ama sida walaalaha igu cusub ay igu soo biiray waxaan leeyahay welcome soo dhawaada bilis hadii aan ugu cusubtaa ku tamarku guursan naga la subscribe like share comment